nahay wadiga dugsiyada maalin wanaagsan waa ayaam salaas waxaynu bilaabaynaa maanta casharkeennii hore waxaynu kaga soo baxnay haddaynu in yar iska xusuusino aynu in yar dib u yarayna casharkeennii shalay isuukeen dambeysay ee uu kaga waramayay geeraadkii ahaa ammaan faras oo uu ku ammaanayay macnaha faraskiisa raagowga surfa uu ku qaadaadhigii uu kaga sheekeynayay adkaysigiisa quruxdiisa firfircoonidiisa iyo wax kasta iyo orodkiisa uu ku qaadaadhigayo ammaanta faraskiisa raagowgaas qaybta aynu kaga soo baxnay maanta waxaynu gelaynaa waynu qaybta kale maanta geeraadka labaad aynu isku eeganaa ah maahir waxaa loo yaqaano maahir sidaynu hore magaceeda u soo sheegnay waa hal magaceed ahayd maahir geeraadkan maanta maahir aynu kaga waramayno aynu kaga sheekaynano waxaynu kaga waramaynaa aynu ku falanqaynanaa aynu ku qaadaadhigaynaa aynu kaga sheekaynanaa waxay tahay geeraadkan magaciisu yahay maahir waxaa tiriye awaankeenii weynaa allaha u naxariistee cabdilaahi suldaan timacadee naxariistii janna allaha ka waraabiye waxaynu aad uga soo sheekaynay waynu aad uga warabanay taariikhdiisii iyo wax kasta oo uu ahaa awaan cabdilaahi suldaan timacadee wuxuu ahaa awaan suugaaniyeed baraha bulshada iyo baraha soomaalidaba aad ugu xudun leh oo aad loo qaadaadhigi jiray oo aftahanimadiisa iyo halgudhigiisaba ay aad dadka u jeclaayeen waa awaankii weynaa ee haddaynu dib isku yara xasuusino geeraadkii ahaa sameeyey ee calankeena u qaadayey ee uu lahaa kaanasiib ka nasaar waa calankii markaaynu ingiriiska iska ridanay ee markaa keena la saarayeen xorriyaddeena dib ugala soo noqonaynay cabdilaahi suldaan timacadee geeraadka maanta waxa uu kaga waramaya uu kaga sheekeynayaa waa manaafacaadka uu geelu leeyahay iyo waxtarka uu inoo leeyahay iyo adkaysiga uu leeyahay intaasoo dhan ayuu kaga sheekeynayaa cabdilaahi suldaan timacadee wuxuu leeyahay waa shayga ugu adkaysiga badan leh xoolaha wuxuuna leeyahay xoolaha kale siyaabo badan buu leeyahay oo lama dhigi karo oo laguma mateli karo buu leeyahay xoolo kale oo la mida wuxuu leeyahay haddii lo iyo ari lasoo agdhigo in ay isla meel maraan lagama yaabo buu leeyahay oo geeraadkan waxaan kaga waramaynaa maanta adkaysiga iyo manaafacaadka geelu leeyahay xoolaha kale ee uu dee kaga faa'iido badan yahay cabdilaahi suldaan timacadde sidoo kale geeraadkan waxa uu kaga waramaynaa ama kaga sheekaynanaa waxyaabaha uu geelani xoolaha kale uu aadka uga sii qoto dheer yahay waxa uu gabayga si qoto dheer ugaga waramayaa ammaanta geela wuu ammaanaya weli ilaa hadda ammaantii baynu ku jirnaa ammaan la ammaanayo waayo ammaantii horeynu ka soo baxnay nafarday ahayd maantana waxa aad ugu agwaangana cabdilaahi suldaan timacadde uu ammaanaya waa geela uu mudan yahay ammaantaas siday caanihiisu u deeqaan dad iyo duunyaba macnaha maanta wuxuu leeyahay caanihiisa marka laga soo liso ee gorofka amba hadhuurka lasoo hoos qabto ee laga soo lisay ee laga soo tuujiyo dad iyo duunyaba wuu deeqayaa buu leeyahay oo waa mid ku filnaanaya geeraadkiina waxa uu ku bilaabaya cabdilaahi suldaan timacadde kaliil maankala leediyo meydkii loodaa la yaabay iyadoo mid weyniyo midhacay fadhiiso midabgeed ka weydiiyo markiyaanii geeliyo wuxuu ku leeyahay xili adag ay jirto oo kaliila oo dee ay lo dhulna ay halkaa daadsan tahay meydkeedii buu ku leeyahay oy abaari haleeshay oo dhib badan ay mudanayso oo weliba uu ku leeyahay midabna waa wax loo yaqaanaa meelihii miyiga waagii hore miyigunbaa nimankan idhaahay midabkii waa la odhan jiray macnaha sida iyo meelaha kaynta badan leh markiyaaniya geeliyo midhihiisu manaaficaadkeedu habaar wuxuu ku leeyahay waxay quudato iyo waxay cunto waxay ahayd geedaha midhaha yaryar leh ee weliba ay cunayso ee manaaficaadkeedu habaarka yar ee dhulka ka soo baxay maalintaa gidigeed maahi soo rogtaay midhishigii ay tiqiin bay
madiic soo olasha wuxuu ku leeyahay manaaficaadkeedu markuu gaadhaa maalintaa gidigeed maanta oo dhan ay soo wareegayso oo dee hashaasi maanta gudi soo socotay milishigii ay tiqiimay milishi waa maxay waa calashigii ay tiqiimay madiic soo olasha ay maqribkay dadabtaa markaasuu ku leeyahay intay macnaha soo cabaado olol waa maxay waa hashu markay soo cabaadasay soo reebaysa macnaha maqribkay dadabtaa muskay caasha qabtaa markaasuu meynta soo hontoshay soo fariistato la soo xareeyo ayay muska caasha qabtaa caasha maxaa la dhahaa laabta ama sakaarka ayaa loo yaqaanaa caasha xiribtay milmashaayo masaankeeda dibnahiyo sanku meel uu ku yaaliyo sunnayaasha madow iyo dhegahayga la miiqiyo iminka wuxuu kaaga sheekaynaya uu ku muujinaya uu kaaga warramaya waa maxay jismigeyga waxa dhan ee ku yaala oo dhan ayuu kaaga sheekaynaya in lixaadkayga dhan ee ilaahay uu u dhamaystiray siday muuqaal ahaan ay u yaalaan markaasuu kule xiribtay milmashaa xirbo waa maxay waa xirbaha yaryada halka indheyna ku dul yaala masaalkeeda dibnihi macnaha masaal waa maxay waa tusaale wuxuu leeyahay masaalkeeda dibnaha iyo sanku meel uu ku yaalo macnaha tusaale ahaan baa kaaga bixinaya buu leeyahay sankeyga iyo dibnaheyga halkay ilaahay ku laday sunnayaasha madow ee ilaahay uu ku manaystay dhegaheeda la miiqiyo ee macnaha inta dhegaheyga dhaadheer sidaa loo miiqay luqunteeda maska moodiyo luqunta dheer ee sidaasoo ah ee maska aad moodid buu ku leeyahay maqarsaarka duudkiyo macnaha waa kuruska lafta yar ee ka dambaysa ayaa loo yaqaanaa maqaarsaarka duudkiyo ayuu leeyahay mudunihii kuruskiyo sibirteeda maroonsan kuruskan uu ilaahay xitaa ku manaystay iyo sibirteeda lafteeda buu leeyahay afarteeda mijoodbay macnaha afarteeda lugoodbay miijisaa sida taag oo ay kala saartaa sida maxay shay fariin la dirayo oo kale ilmahay midnataayo miijisaa afar naaso ilmahay macnaha ku gudlisaayo macnaha u muujisaa afarteeda naaso jaqsiisaa macnaha mugoday goblataayo mugo waa maxay waa hasha markay caanaha ku soo gagaxaan ama ay ku soo dhacaan hasha caanaha ugu horeysa inta ku soo dhacda ayaa loo yaqaanaa mugoday goblataayo miskeeda laga wiilo marad uga furnaa markaasuu ku leeyahay afarteeda naaso markay isu keentay laba ka mida ayaan marad uga furnaa marad waa maxay waa maydhaxda hasha lagaga xidho candhada ama naasaha si ayna niritu u jaqin ayaa loo yaqaanaa marad markaa lagaga xidhin marki weyn kalisna marki weyn waa maxay haruub ama gorof weyn intaan kalisna ka toojinay buu ku leeyahay waaku masaakiin bacdare iyo martireeda u joogtiyo mid aanu maamulayn iyo maatidii yareeday iyo maqashii jaqaysiyo wuxuu leeyahay markaan haruubkaa weyn ka soo lisno haruubkaa weyn ka soo gaagaxina buu ku leeyahay ayaa waxaan samaynaa masaakiin bacdara masaakiin yaryar oon waxba haysan marti reer u joogtiyo iyo weliba reerka marti u soo hoytay waayo sooryada markay marti reerka u timaado haddii xitaa reerka oo wax macno ay ku soo hoydaan waxay la geli jireen maxay bartaa xelada xoolaha oo markaasuunbaa caanaha gurafka lasoo hosqaban jiray oo la keeni jiray masaakiin bacdariyo martideedu joogteen hadday raga xitaa neef ayaa loo qali jiray waagaas oo martidu aad ayuu ugu xeedheeray maanta martidii si loo soo reyn jiray maanta loo masooliyeeyo martideedu joogtiyo mid aan maamul lahayn iyo maantidii yaryaray maantidu waa maxay waa ciyaalkii yaryaraa dee aan lahayn cidna oo uu kuleeyay maqashii jaqaysay iyo weliba xoolihii neefkeedii jaqayiba mudanihiiba dhergaano intaasiba intay dhergaan mabsuudaan rubuc saac oo ay saacad barhkeed ahaanaya dad mabsuuda oo maxay dheregaysan sagaal loo intishaayo oo macnaha sagaal jeer loo noqdayo ma miraalo gubaayo lo'dana isku midba macnaha roob miraalo waa maxay waa roobka habeenkii qaybta dambadda ah ayaa loo yaqaanaa miraale markaasuu ku leeyahay ma miraalo gubaayo lo'dana isku midba wuxuu na weydiiyey maxay lo'dana isku midba waad arkaysaa neefka geela manaaficaadkiisa iyo adkaysiga iyo xoolihiisa kale wuxuu leeyahay lo'dana isku midbaayo lo'da ma la soo barbardhigi karaa buu ku leeyahay geela ardaye waa maya oo waxaynu arkaynaa inayna geelba ayna isku mid ahayn lo'du waayo lo'du uma adkaysan karto
abaar iyo dhulxuma hadday timaado laakiinse geelu wuxuu u adkaysan karaa ilaa iyo in waqti dheer inuu u adkaysto waayo xitaa socod dheer oo geelu geli karo ma geli karto lo-du waayo adkaysi intaasana lahayn intay biyaha ka qatanaan karto in laba jibaarkeeda ayuu geeluna kasii qatanaan karaa intuu geelu qatan yahay lo-duna qatanaan karto markaa maanta waxaynu casharkeena ku qaada dhiganaa ooaynu kaga warramaynaa kaga sheekaynana arday oo abwaabku kaga warramaya waa maxay waa adkaysiga uu leeyahay geeliga oo xoolaha kale uu leeyahay kaasoo abwaabku leeyahay geelu waxuu yahay waa lafdhabarka bulshada waayo xoolaha kale wuxuu kaga adkaysi badan yahay shay kasta oo markaas soo wajaha xoolaha kale uu ku qaada dhigaya abwaabku geeliina maanta uu u mutaysiinayay inuu geelu uu mudan yahay ammaantaas oo maanta ay tahay geelu inay faa'iido badan aynu ku qabno caanihiisaas oo aynu manaafacaadka jidhkeena u leeyihiin aadoodan oo lafihiina ay dhisayaan iyo waxyaabo badan oo ilaahay uu ku manaystay geela oo sida aynu aayadaha qur-aanka qaarkood ku maqano oo macnaha ilaahay kurskaana uu ku dhex bislaysiin ammaantaas ayuu geela maanta aynu ku qaadadhiganay gabaygeena wuxuu gabaygan ka warramaya maanta waa geela ammaantiisana sidoo kale waa assalaamu calaykum waraxmatullahi